السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu sameyneynaa shurbad. waxyaabihaynu ka sameyneynay ayaynu halkan kusoo diyaarsanay waxa weeyaan maaji iyo tamaandho qasaac ama tamaandho shiishid qofku suu yaqaano. waxa weeye barbarooni, tamaandho, basal, 3 xabo basal baan rabaa inaan ku sameeyo, laakiin adigu intaad rabtad ku sameyn kartaa. hadaad rabto xabad, hadaad rabto xabadaha afkeed, toontii iyo karootadii. xawaashiyadii waxa weeye khamuun baynu ku daraynaa ama kumin. huruud baynu ku daraynaa iyadana wax yar. huruud waa caafimaad, way fiican tahay. waxaynu ka sameyneynaa oo madaxdii ah waxa weeye misirka huruudiga ah, waxa weeye kamsare ama coriander oo fresh ah. intaasaynu ka sameyn doonaa haddii ilaahay awoodda la idmo. maxaan ku idhaahdaaye waa shurbadii ramadaanta. caloosha markay maanta o dhan soo gaajaysnayd in shurbadan oo kulul la siiyo oo laga bilaabo cuntada waa wax aada u fiican oo caafimaad badan. hadda waxaynu jarjaran doonaa basashii haddii ilaahay ka dhigo, iyadii baynu iyo de waxyaabihii kaleba waynu jarjari doonaa. markhaati baa maanta laga wada ahaanayaa sida aynu u jarjaranayno haddii ilaahay ka dhigo. shurbadu aada bay u fiican tahay. misirkoo keliyana lagama sameeyo, waxyaabo fara badan ayaa laga samaystaa shurbada. marar kaleynu soo gelin doonaa insha allah waxyaabo kale oo iyadana shurbada laga sameeyo. waqtiga rabadaanta san horeba u sheegay aada bay ugu fiican tahay caloosha. calooshii maanta oo dhan madhnayd oo aada u cuslayd, markaad haddaad biyo badan istiraahdo ku shub way sii cuslaanaysaa, deedna xanuun iyo waxaad dareemaysaa dhibaato. laakiin markaad bahasha kulul ka bilowdo kadib aad maasha allah timirun baad ka horeysinaysaa, kadibna iyada ku bilowdo kaale iska arag waxay isu diyaarinaysaa cuntada inteedii kale. hadda barbaroonigii baynu jarjaranaynaa haddii ilaahay ka dhigo. shurbadu aada bay ugu fiican tahay, waanay macaan tahay of course, sababto waxyaabahaas wada fiican ee macaan marka la isku dardaro wax macaan baa kasoo baxaya. hama ogaanina haddii ilaahay ka dhigay inaad sameysitiin. rabadaantoo keliya xitaa ma aha, mararka kale aanay rabadaanta ahayn casho waa laga dhigan karaa, iyada iyo roodhi ayaa laga dhigan karaa. marka aada bay u fiican tahay. barbaroonigii baynu jarnay, yaryaraynay, kaale iska arag. waynu sii hubinaynaa weliba inuu si fiican u gogo-an yahay. waxaynu kale oo dhilaynaa tamaandhadii. tamaandhada diirkeeda waana lagu karin karaa, waana la dhili karaa. anigu asal ahaan waan necebahay markaan suugo ama maraq wax ku saabsan ku sameynayo, diirka yare ururaan necebahay, marka waan iska dhilaa badanaa. laakiin haddaad rabto dhib ma laha, iyadoo diirkeeda wadata ayaad maxay ahayd tole ku sameyn kartaa. kaarooga isagana laftiisa waa inaynu dhilno, kadibna waynu jarjaraynaa. akhyaarta soo dhawaada. hadda kaaroogi waynu jarjarnay. maxay ahayd tooley qaraabada cusub, qaraaba ila wada tihiin. qaraabada cusub ee channelkayga ku cusub aada baan idiin soo dhaweynayaa, fadhigaan idinka kacayaa. waxaan ku iri salaan diiran baan idiin soo dirayaa, dhammaantiina waan idin wada salaamayaa. maanta salaanta meel dhexaan ka geliyey. marka maxay ahayd tooley hadda waxaynu qiyaasaynaa waxa weeyaan misirkii ama cadas qofba siduu yaqaan. hadda waxa weeye koobarhkii weeye waa 100 gram, waa koobarhkii intaasi. kadib waxaynu kala soo qaadanaynaa taa haafkeedii oo ah
50 gram waa koob barhkii iyo koob 4 meelood loo qaybiyey meel ahaan. Hadhowto waxay noqonaysaa maxay ahayd toolay koob adigu marka 4 meelood loo qaybiyey 3 meel ahaan baan karinaynaa. Qofku inta qof u karinaya isaga og. Misirkuna asal ahaanba wuu bataa marka la kariyo xoog buu u farabataa. Marka intan waxay ku filaan kartaa imika 6 qof oo kaleeto 6 madiimadood oo kuwa ay iigu jiraan qalabka maxay ahayd toolay waa ku filantaa. Hadda digsigii baynu dabka saaranay maxay ahayd toolay wixii baynu rabnaa aynu soo jarjaranay inaynu maxay ahayd toolay hadda shiilno saliid yar oo saliid saytuuna baan ku shubnay kadibna basashaynu ku shubaynaa haddii ilaahay ka dhigo. Alaabtu saasay u soconaysaa dee waad iska wada garanaysaanoo waa uun haystaba taalo mid kaga dabagee meesha. Basasha markay waxoogaa inoo yara shiilanto ee ay bilowda inay soo casaanayso markaasaynu haddii ilaahay ka dhigo kaarootada ku daraynaa. Kaarootada maadaama ka yara adag tahay waxyaabahan kale waxaan rabnaa inaan iyada ku xigsiino basasha haddii ilaahay ka dhigo. Hadda waa tamaandhadii xabadii tamaandhada ahayd iyadana aynu soo jarjaranay iyo xabadii kaarootada ahayd iyo 3 midho basasha ahaa ayaa isugu kan shiilmay. Basashan hore u sheegay qofku intuu rabo ayuu ku darsan karaa. Anigu kulliba waxaan jeclay basasha faraha badan aad bay cuntada u macaanaysaa. 4 xabee toonta ahaa iyagana aynu soo shiidanay ayaynu ku daraynaa. Barbarooni isagu waa half buu ahaa xabad halfkeed. Hadda waa tamaandho shiishiidii qiyaastii 1 malqaacada ta cuntada ah ayaynu ku qiyaasaynaa intaynu ku darnay. Macna ma sameynayso galkay ku jirto iyo meeshii muhiimaddu waxa weeye tamaandho shiishiid iyo tamaandhadeeni caadiga ahayd xabuubta ahayd basashii adigu khudradaynu naqaanay iyo xawaashiyadeeni weeyaan. Marka maasha Allah hawshu weli way noo socotaa waxaynu ku daraynaa biyihii 3 galaas oo biyo ah ayaan rabaa inaan ku shubo. Hadda 2 ku shubay koobkii 3aadna waa kaas maasha Allah. Kadib cadaskii ama misirkii baynu ku shubaynaa. Sidaasaynu daboolka ugu jiidaynaa xawaashiyadii milixdii waxa baynu ku darnay dabkaynu u gaabinaynaa 30 daqiiqo ayaynu karinaynaa haddii ilaahay ka dhigo. Dabka hadda xoog baan ugu gaabinayaa. Mardhow hadna waan u yara kordhin doonaa ilaa number 4 meelahaasaan u geyn. 30 daqiiqo ka bacdi wuu bislaaday marka waxaan rabaa hadda inaan shiido khudradii iyo misirkii iyo wixii oo dhan isku shiido. Mishiinka sharaabka lagu shiido ayaad ku shubi kartaa wax oo dhan deedna waad ku shiidi kartaa. Anigu hadda kan baan ku shiidayaa aan ka fududaystay. Laakiin mishiinka haddaad kan haysanna mishiinkaas aad ku shiidan kartaa. Wax dhiba ma laha haba yaraatee. maasha Allah udgoonka iyo waxaan ku sida uga soo kamkamaya wada yaabaysaa. Markastana waa inaad haddaad rabto dhadhamisidood milixda iyo xawaashiyada iyo wuxuba inay isku dheeli tiran yihiin aad u eegtid. Sababtoo inagu haddaynu Soomaalidana aad baynu ugu fiicannahay waxyaabaha xagga qiyaasta. Warqad ma raadino hadda madiimad baynu ku shubanaynaa. maasha Allah inta in la qiyaas ahaan qofkii way ku filan tahay. Sidanaynu u soo diyaarinay. Liin dhanaan baad ku tuujisanaysaayo waxaan ku iri maasha Allah ka kicimaysid baan ku iri intaa yar nag baad ka siinaysaa calooshu waxaan ku way ducaynaysaa dee ha moogaanina channelkana inaad subscribe saartaan haddaanad hore ugu jirin ha ilaawin haddii kalena suulka kor u taag sii share garee aynu isu soo ducayno. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.